Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Halka aad iga daawanaysid waa Abno Official. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladayda. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa xiriirka suuqa. Marka shaqeysa suuqa, qeexida suuqa. Marka la qeexo suuq guud ahaan, suuq waxaa loola jeedaa in uu yahay meesha badeecadaha la keeno waxna lagu kala iibsado, sidoo kale waxaa lagu qeexaa in ay tahay meesha adeeg lagu iibiyo, qof walba baahida adeegga uu qabo lagu siiyo, waxaana lagu qeexaa in ay tahay goobta ay ku kulmaan labada dhinac. Mid ka mid ah waxay khusaysaa iibinta badeecooyin gaar ah ama adeeg bixin, midna waxaa loogu talagalay in lagu soo iibiyo badeecadahaas iyo adeegyadaas. Qeexitaanka suuqa xagga dhaqaalaha wuu ka duwan yahay qeexida guud ee la xiriirta goobta lagu iibiyo alaabta iyo adeegyada, iyada oo lagu qeexo dhaqaale ahaan inuu yahay wax kala beddelasho, wax kala iibsiga iyo iibinta badeecadaha, iyo saameynta qiimahooda oo ku saleysan tiro aan la go'aamin karin, maadaama go'aamadani ay ku xidhan yihiin laba arrimood oo waaweyn oo wada shaqeeya, kuwaas oo kala ah xisbiga wax soo saarka badeecada oo loola jeedo dadka alaabta keena, waa kan gacan ka geysta gacanta ku haya qiimaha sheyga suuqa yaalla, sidoo kale macaamilka badeecada waa kan iibsanaya koontaroolaya qiimaha dalabka, sheyga u baahan tahay. Qiimaha dalabka ee suuqa waxaa go'aaminaya macaamilka badeecada iibsanaya. Baaxadda juqraafiyeed ayaa go'aamisa dabeecadda suuqa dhaqaalaha. Fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladayda. Mahadsanid.